soo dhawaada waa miyaro ah aan soo galayo waxaan kala hadlayaa channelkaygii YouTube-ka Jaafete anigu hadda soo toosay barnaamijdan baa lagu jiraa ilaahay anaga aqbalo qiyaamkii iyo siyaamkii ummadda muslimiinta oo dhan ilaahay ka aqbalo xanuuno badan iyo dhibaatooyin badan baa adduunka oo dhan ka taagan si guud ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu nabaal mariyo xanuunkaas safmarka ee adduunka saameeyay COVID-19 especially muslimiinta waxaan kula dardaarmaynaa inay newska dhageystaan iyo tallaabooyinka caafimaadka iyo fariimaha caafimaadka meel kastoo ay joogaan taas waa taas hadda anigu soo toosay afur baa la samayso laakiin waxaan arkay laba guddi oo la iska dhinac magacaabay boqorkii oo guddi magacaabay iyo madaxweynihii Sidi Cabdullaahi Dino oo guddi kale isna magacaabay arrintii qardho oo challenge baa halka ka socda laakiin laba qodob kaliya isku taagay 2 points raadku labada qodob isku taagay waxa weeye horta labada guddi ee la kala magacaabay dalka dawlad baa ka jirta oo dawladda ninka Sidi Cabdullaahi Dino anagu faatahay soo tarno laakiin waa la doortay si constitution ayaa loo doortay baarlamaanka Puntland baa codka siiyay madaxweynaha waa 5 sano markuu waqtigiisa ka dhamaado 2023 hadii uu rabo inuu tartami karo ayaa dhantiisa intii loo dooranayo oo weligeeda Puntland ka haysan laakiin xaq uu leeyahay waxa ay gaalka dilgartiisa la siiyay wixii constitution lagama dilboodi karo laakiin qodobka meesha ku jira waxa weeye oo burhaan dawladda Puntland ay meesha ka jirta 22 sano Google mooyee wax horumar aan gaaray wax garaad aan u kordhin waxaanay qaban buu qabtay inta futbal isagoo ah iyo garbaha nimanka waa ee simadii ay la socda arrintii ay soo xaliyeen baan ogeyn lacagihii uu garaad boqorku ballan qaaday iyo intuu wareejiyay 600,000 ay wareejiyeen meesha ku keenay anagu ma garanayno magaciisa ku soo ururiyay dad muxsiniina oo Soomaaliyeed oo cid kasta ayaa lacagaha dameentay arrintaas sulx ku dhameeyay waan sababta aan hadii jeer anu boqorka u taageero anigu maxamed salawaaka ku tufa nimanka tolka aan haleen wadankii waad baabiiseen waad rogteen simadii isma dhaantaan haddana ninkaas aad buu ugu suntay waxyaalo badan waliga anu lama hadlin life na uma arag beelu joogo beriga booso joogo qofku ku maqnaa laakiin waa nin shakhsiyad fiican oo sunnahii rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ka muuqdo oo dadka nabadeeya oo si soo dhaweeya oo markuu hadlay xitaa hadal xanafa aan oran oo Soomaalida had iyo jeer hadii ta koonfur dhibaato ka dhacda oo u gurmadaa Soomaaliya hadii wax ka dhaca u gurmadaa iska badaa dadka kale oo Soomaaliyeed oo xukumo ilaa ninka boqor daarood boqorka inuu ka leexleexno ma aha ninka boqor daarood anagu ma diidi karno teatarkiisa meelaha dad baa ka yusoo yiraahdaa boqor daarood ma aha ninka boqor daarood lamana dafiri karayo dadka waxba iska khaldan waa arkaysa xitaa Suudaanka warsangeliga maagaya Suudaan warsangeli boqorkana waa boqor daarood isinka hadda is haysaan lama daadifeeyo teatarkiisa boqor burhaan boqor muuse boqor daarood weeye boqor daarood teatarkaas uu haystaa cid diidi kartaa ma jirto gaaladaas maanta aqoon dadaan Google garay uu soo baxaya waxa weeye marka aan kala saarno diidmada iyo boqorka Sidi Cabdullaahi Dino mid baa dhaaftay qorinadeero gacaliyo boqorkaagii weeye anaga ogol waxay garoolkane baa ku khasban qof wala wuxuu qabo qardho la imanaya 200 oo qarni ka hor baa mahmaahdaas soo baxday wala socotaa boqor burhaan aan dhalan baa laga xitaa biina dhalan baa laga bariga laakiin boqortooyada ay jirtay qof waliba wuxuu qabo qardho la imanaya war boqorka u tag boqorkaagii weeye lama siyaasadeeyo dhaqanka khasab maaha inaad tiraahdo boqorku maxaa aniga iigu iman waayay no way anaga dhaqankaanu naqaanaa guri dhaqan baanu ku soo kornay saldanad facawna warsangeli baanu nahay dhaqanka wax tiraanaa wax kasta aanu Suudaan Siciid ka tirsanayno ma daadifayno waa sababta aad wali u arkaysid warsangeli ay still Suudaanka u daba joogaan dhaqan how many balbahanti eeg ama jeerteen eeg mas'uuliyinka haysta saas loo kala jajabay isma la kala samaystay waxa weeye wax faa'iido ma keenayso Umar Maxamuud kaliya ayaa 100 isin leh Maxamed Umar baa mid leh reer Khalaf baa mid leh reer mahadkooda waa ka tirada ku wardiyeen isoo wardiyeen anaga Suudaanka iyagu saas u dishishaan la mid alla ilaahay baa beercay nimanka reereeyay dishishe iyana waxay ku suuteeyeen hal cali salaam xitaa uu burburay Umar Ali baa mid leh Ismaaciil Ali baa mid saas boqor bay xitaa samaysteen waxa weeye marka waxa soo dhan looma baahna haddaad aragtid ummad jirta waa ummad dhaqankooda ka dambaysa Sidi Cabdi Salaam anaga noo taagan anigu waa dhaliilaa Suudaanka iyaga dhowr jeer baan
ku turtuuray inkastoo hadda anaa u taageersanahay aan ku turtuuray laakiin waxaan aad ugu amaanaa dadka warsangeliga ee community-ga meesha degan yihiin beelaha warsangeli dad still dhaqankooda ka dambeeya anigu aad baan uga soo horjeedaa maalinba nin lagu caanasho meel waxay soo kordhinaysaa ma jirto iyo conflict uun basii badanay kuwa ay wax ku caanashubay haddii caqli hayaan suldaankii sixi lahaayeen suldaan waxaana kaa khaldan isaga garba u noqon lahaayeen boqor burhaan boqor daarood weeye dowladdu inay la challenge garayso maaha sida ay ciise maxamuud kooda u dhoobdhoobayaan oo hadba uu intuu microphone qaato isagoo muddo 60 inuu joogo uu ka nacnaclaynayo islaam ciise waxa loo baahan yahay ma islaam ciise iyo boqorku hadday is hayaan waa inuu islaam ciise tagaa islaam ciise teatar hooseeya laf yar oo ciise maxamuud mujartaan kamid uu yahay ciise maxamuud weeye oo laf kamid mujartaan kamid maxamuud salaam kamid ayuu isnu yahay boqorka daarood ee nimanka gari koombe daarood oo dhan kuuyada ogaageen xitaa ay taageersan yihiin aad lama dafiri karo walaal mujartaan oo tidaayo boqorka maamuusa anagii qarkasta warsangeliga qarka anagii qarkasta raaba taageersan oo gol 1 kilomitir ka yimid iyo baashi isha calmidow ba gol boqorkay oo la boqor salaanta ku tag oo golaada boqorka u taga karaameeyo gurigiisa u taga wadiga arkay markay yaman tageen si loo soo dhaweeyay oo nimanka mataqaana meher iyo carabta yaman degan ee ehelkeena ee ala daaroodiya ku abtirsada ee aan waligood arag si soo dhaweeyay u karaameeyay taariikhday hayaan kii qarno joogay ee la dhashay ku abtirsadana inuu daadifeeyo raba ama garowga joogay madaxweynaha waxa laga rabaa madaxweyne boqorkaagii weeye inaad la challenge garaysid ma aan waxa ku oran lahaa boqorka u tag gurigiisa gargarac adoo aan lagaaga ergoon shalay markaad xildhibaanka doonaysay adiga u tagayay ku wareegay maxaad u diidaysaa maanta burhaan waa kii un way burhaan waa kii boqorka u tag hala challenge garayn meesha boqortooyo gaamistay baa ka jirta ninkii South Africa tagay Soomaalida xabsida ka sii deynaya boqorka South Africa la kulmayay nin la celin karo ma ninkan uu socday nin la celin karo wallahi ma anigu boqorka aad baan taageersanahay waa farisma waxa weeye boqorka marka waxa weeye madaxweyne inta iska daysid waxana ay ina shido iyo xasan shire abgaal ku sheegayaan ay marka ku leeyihiin ayl tag marna ka soo noqo marna xasba hala tag homework lagu diray iska daa kullu shay yartu asli arabta tira shirka asalkiisa wala banay aakhirka qarna la isku tagaya boqorkaaga u tag ka ducayso isla meel dhiga hadii la doono labada gudiba hala isku daro waxba ma diidana anigu boqorka si fiican baan u dhuuxaa wartiis u dhigista wallahi waa hambal oo degan oo ay shaacirtii mataqaana sunnihii wanaagsanaa oo ka muuqdo oo had iyo jeer dadka nabadeeya oo tusbixiisa iska sita oo dadka sooriyeeyo oo soo dhaweeya oo xataa dil anigu waxa la sheegtay maandhow niman qardo dad isku qabtay oo mag iyo wax kala bixi waayay isaga bixiyay waa tii la yiri sadaqadu midigta markaa bixi hadiye ogaan inta waxyaalaha badan oo aan anigu ognahay oo u dhameeyo oo aniga soo sameeyay sheegay lama tiri karo kuwa gawaari kala dhacay waxaas waa wixii aan ismada u dooranay marka intaad ku mashquulsan tahay isin kale ee siyaasad iyo balaayo ku guuxayso ee gaari iibi kule boqorka ka ducayso boqorka u tag waa talada aan anigu ku soo jeedinayo garaadkii waa tiradii u dambeysay anagu sugnahay madaxweyne faatax isuma soo dirno laakiin marka qaar ku talaabinka ay qaado ku bugaadiya safarkaada qarna ku tagtay xitaa hadda safar ay sarwaalkaagii dharkaagii aan arkay dhiiqada ka muuqata iyo sida aad biyaha ugu talaabsanaysid waxaan tusaysaa inaad tahay hogaamiye wanaagsan hogaamiyahan saar u yaqaan anigu ku dhaleelaya haddana waan kugu amaanaya talaabada aad qaatay madaxweyne kale hadduu ahaan lahaa wuxuu oran lahaa wasiiradu ha loo diro ama cid kale ha loo diro waxyaalaha farmaajo ku taageeray ka mid ah marka dhibaato taagan tahay waa in madaxweynuhu uu meesha taagan yahay isagoo aan suud xidhnayn oo labisneed oo dadka iska weyneen Jameskiisa iska sita waana qaabka aan shalay kugu arkeen waa hogaamiyaha wanaagsan qaabka lagu yaqaano waa kugu bogaadinayna waxyaalaha aad qabato wixii aadan qaban ee aad il duuftana waan ku saxaynaa anagoo aan ku canjarafeyneen ku maageen ku fogeyneen ku dhaleeleen ku ceebayneen marka baaqa u dambeeyay ku soo jeeyo waxa imaan rabaa inaan wuu jira afur baa hadda aniga ii kari waxaan rabaa inaan mar dhow iska afuro aan soo ducayno taladeeda u dambeysay baaqa u dambeeyay waxa weeye boqorka ha loo tago boqorku maaha inuu socdo oo guriga garaaco muxuu boqorku madaxtooyada inuu waay muxuu boqorku calaamasaarka uu soo qabay no way boqorka waa loo tagaa dhaqanka saas ahaa dhaqanka Soomaaliyeed baa saas ahaa especially dhaqanka daarood baa saas ahaa dhaqanka hartiga saas ah dhaqanka ku ciyaari madaxweyne dhaqanka ku ciyaari Cismaan Maxamuud aatay boqortooyada tahay shaarubihi anigu xitaa waaniga la baxay hadda waa aragtaa saa oo la baxay shaarubihi sababtoo ah boqortooyada waxay galaan Cismaan Maxamuud ka baa waxay galaan 10 ay 40 ay 5 boqolkii 7 anigu Cismaan Maxamuud baa waxa weeye marka waxa weeye waan garanayaa dhaqanka iyo qarno sida loo ixtiraamo dhaqanka iyo sheerb iyo meelaha Cismaan Maxamuud ku degaan adna sidii baan ka rabnaa dhaqankiina ixtiraantid boqorkii u tagtid wargacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaa waryaan leeyid ka faa'iideysan war Puntland iyo Soomaaliya oo dhan markay burburtay anigu hal mid baan qaraa dhaqanka Soomaaliyeed hadaysan jirin Soomaaliya way kala baabi'inahay xitaa kuwa koonfurta iscunaya hawiyaha iscunaya Axmed Diiriye iyo waxay doonay idaacadaha ka sheegan laakiin waxyaalo badan ay xaliyaan baa jira oo aan ku amaanay kuwa Soomaaliland ee kuwa Puntland ee marka dhaqanku waa muhiim boqor buraanna uu ka duwan yahay
boqor burhaan waa labeentii Soomaaliya waa dadka la rabo inay u noqdaan tusaale wanaagsan Soomaalida waa dadka aan rabno in lagu daydo malaba qabo markay islaysan waxaan aaminsanay boqorka hadduu mikrofoonka intuu qabto siiriga yiraahdo talistaaga hubka dhiga inay dhigayaan sababtoo ah waa nin la aaminsan yahay waa nin cadaalad ku suntan marka inay reeyaan bacdi boqorka ixtiraama oo speech la madaxweyne boqorka ixtiraam oo u tag waan ku salaamayaa Ramadaan Kariim